ninba hadda ii sheekeeyay abgaalo awowgay halkaan ku shakaysan waxaan ka shakaysanna Soomaali inay ehel tahay walaalo tahay dhiig iyo dhacaan tahay isku dhiig tahay waas ku soo dhacay markii dambe waxaan awowgay baa tahay anu nin daaran doolaa baanahay halkaas aan ka soo jeedaa reer diini baanahay abgaal baana dhalay waxaan laba gabdhood oo walaalahay abgaal baa qaba ehel baanahay dhiig baanahay xidid baanahay waas dhalnay baa ii sheekeeyay ninkii wuxuu yiri qisa ka dhacday xamar buu iga sheekeeyay marka Soomaaliya ninkii abgaal wuxuu yiri nin ma jarteena jiray buu yiri xamar oo hooyadiis jarteena hooyadiisna abgaal ay abti loo yahay marka wuxuu yimaada khadka cagaaran buu yimaada wiil buu dhalay buu marka wiilkiis dhinac kale u aadaabay wiilkiis ma wareystay buu wuxuu yiri aabe cidee tahay wuxuu yiri Soomaaliya qabiilkee ugu fiican wiilkii baa yahay odag wuxuu yiri ma jarteen baa ugu fiican magaalada ugu fiican Soomaaliya wiilku wuxuu yiri waxa ugu fiican gaalkacya ugu fiican habeenkiiba guriga u tagay wiilkii bisla su'aashii buu weydiiyay aabe magaalada Soomaaliya u fiican gaalkacyo qabiilkee Soomaali u fiican ma jarteen haye wiilkii waa odagii wuxuu kaalay buu yiri maqal buu yiri Soomaali waxa ugu fiican midkii Ilaahay wax ka dheefiyo maya Soomaali waxa ugu fiican kii anficiisa aad heshid Ilaahay wax ka dheefiyo dibkiisa aad ka nabadgeshid qabiilkaas ugu fiican magaalada ugu fiican dalka ugu fiican mid Ilaahay ku nabadgeliyo wuxuu yiri meeshii asala igu timid oo dadku joogeen oo aan ku lahaa ma jarteen baa ugu fiican gaalkacyana ugu fiican isugu keenkeen su'aashii buu weydiiyay wiilkii aabaya ugu fiican Soomaaliya ugu fiican suurkii aad ka nabadgeshid dibkiisa dheeftiisana heshid oo Ilaahay wax ka siiyo magaalada ugu fiican aabe suurtaad ku nabadgeshid oo dadkeeda ka nabadgeshid oo nabad aad ugu nooshahay oo nabadgelyo ugu nooshahay oo lillaahi ugu nooshahay oo xalaal ugu nooshahay yaa ugu fiican wax qabiil la yiraahdo waa been ka kula dhashay ba halka kugu dhufanaya